maalmahan shirka muhiimkan ku haystay iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya inaan tusino sida shacabka magaalada Muqdisho uga go'an tahay u taageersan yihiin howlaha muhiimka ah ee dibagista dastuurkana ay yihiin arrimo masiiri ah ummadda Soomaaliyeed ka wada dhaxeeya annagana ka maamul gobol ahaan waxa naga go'an in waxa la wixii ummaddan isu keenaya wixii ayahooda ka talinaya masiirkoodii maaragtay ka gaaray go'aan inaan har iyo habeen u taaganahay taageerana buuxdana u hayno soo dhawaada aqalka dawladda ku soo dhawaada magaalada Muqdisho ku soo dhawaada caasimadii dalka muraayadii dalka meeshii ummadda Soomaaliyeed ay fiirsanaysay annagana ka maamul ahaan farxad weyn bay noo tahay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudoomiye Muuday oo runtii suura galiyay in xafladan caawa ay qabsoonto waan uga mahadcelinayo iyo muddadii labada casho shirkii muhiimka ahaa aad uga xaajoonaysan dibagista dastuurkana inaan idin cadeyno in hawsha inta qabateen Ilaahay idinku guuleeyo inta dhiman waxa Ilaahay kaga baryaynaa inay idinku dhamaato si qurux badan oo shacabkuna uu ku raayo dastuurku waa heshiis bulshana wuxuu u baahan yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabkoo dhan iyo bulshada laga wada qayb geliyo ka wada qaybgalkaasna wuxuu u baahan yahay go'aanada gaarteen bulshada in la gaarsiiyo arrimaha kale xafladan iyo soo dhaweentana ku hoos jirta waxay ahayd in shacabka u soo bandhigtaan gobolka Banaadir bal go'aanadii iyo qaraarkii aad soo gaarteen oo runtii aan aad ugu farxayno idinkagana maaragtay mahadcelinayno intaas ka sokow xildhibaan ama senator Cabdiqaydiid baa ka hadlay gobolka Banaadir wuxuu ka mid yahay 18 gobol shacabka gobolkan waxay doonayaan inay helaan xuquuqda dhammaan gobolada dalku ay leeyihiin annaga waxaan rabnaa in si nidaam ah annaga waxaan rabnaa si nidaam ah dastuurkuna waafaqsan qodobka 9aad nidaamna ah dawladnimada ah wadajir iyo midnimo ummadda Soomaaliyeed ah in lagu hirgeliyo maqaamka Muqdisho sidoo kale waxaan rabnaa in ay shacabka ka soo bilaabato shacabka gobolka lagala tashto degmo walba xaafad walba laan walba talooyinkooda la soo ururiyo talooyinkaas oo urursanna oo maamulka gobolka Banaadir u soo gudbiyo hay'adaha dawladda federaalka ay kala duwan si wixii u noqdaan wax nidaam ah oo ummadda Soomaaliyeed ku qanacsan tahay dawladnimada na xoojinaya intaas ka sokow waxaan kaloo annaga u taaganahay maamulka gobolka Banaadir midnimo iyo wadajir iyo wada noolaasho taasna waxay ku imaan kartaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan inay gacmaha isqabsadaan u istaagaan dalkooda iyo dantooda taas si lagu helana maanta waxaa muuqata halka cadow ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay leedahay oo u diidan in dalkan horumaro inuu amni noqdo in doorashooyin hal cad hal qof dhaco in muxuu ahaa hawlihii dawladnimada ay baahdo waa cadowga kooxaha xaq jirka ee al-shabaab ayagana waxay nooga baahan yihiin inaan meel uga soo wada jeesano si aan meel uga soo wada jeesanana waxa dhibay waxay tahay xafladaha noocaan oo kale oo ummadda isu imaanayo midnimadooda wadajirkooda ku muujinayo ayagana inaan aad u sii ballaarino una weynayno waqti dambe waaye mar kale waxaan idinkaga mahadcelinaynaa inaad ajiibtaan wicitaankeenna waxaan rajaynaynaa maalmaha Muqdisho joogtaan mas'uuliyiintiina gobolada ka yimidna inaad fariin cadna ay gaarsiisaan oo ah ummadda Soomaaliyeed waa midnimo waa wadajir gobolka Banaadir maamulkiisa iyo shacabkiisana wuxuu u taagan yahay arrintaas iyada